asxaabtayda qaaliga ah, soo dhawaada. Waa walaalkiin oo maanta idiin soo bandhigaya shaxda uu maanta dhigtay iyo sida uu u saadaaliyay kulanka Premier League iyo horyaalada ugu fiican Yurub. Maanta waxaan ku saadaaliyay 20 kooxood. Insha Allah waxaan filayaa in aan kaga soo qaadi doono ayna guul noogu dhammaan doonto insha Allah sidii khayr leh. Kulamada haddaan idin bilaabo aan maanta idin hayno waxa weeye Arsenal iyo Fulham. Arsenal waynu ognahay xilli ciyaareedka uu cadaraha ay dhigtay iyo waxa ay samaysay iyo sida ay wax u gashay. Waa kooxda ilaa iyo hadda ugu cadcad Premier League. Cadaraha ay samaynayso iyo heshiisyada ay soo qaadatay. Midda labaadna waxa weeye hadda waxa socota ciyaarta Man City iyo Liverpool. Liverpool 4-0 bay marinaysaa Bournemouth, laakiin waxba ma tarayso. Kulamadii hore ee laga badiyay qaybna barajay gashay. Man City-dana saas oo kale waa lagu leeyahay eegi doonaa kulamadan. Waxaan idhi Arsenal way guuleysanaysaa. West Hamna way guuleysanaysaa. West Ham iyo Aston Villa waa laba kooxood oo horta isku baawara. Waana kooxaha dhexe 6 kooxood ee Premier League marka laga tago. Waa kaalmaha ilaa 10 kuwa soo bixiyay weeye. Waa kuwooda waliba ugu fiican bay ka mid tahay. Waxaan idhi Newcastle waxaa badinaysaa West Ham baa badinaysaa. Waayo waxay u badinaysaa West Ham kulamadii hore way soo guuldareysatay. Laakiin kulamada xigta kulankan jilbaha dhiganaysaa wax dhibic ma laha. Inkastoo Aston Villa ay barajooyin soo gashay iyaduba aysan waxba dhaamin ay isku kaalmaha ugu hooseeya ay ku wada jiraan. Haddana waxaan idhi guushu waxay raacaysaa West Ham United. Kulanka kale waxa weeye waa Wolves iyo Newcastle. Wolves iyo Newcastle waynu ognahay waa laba kooxood oo midkoodna aan hawl yarayn. Wolves waa kooxaha madaxa adag ee Premier League. Newcastle waxa weeye koox dhaqaale ku socdo. Sacuudiguna iibsaday una doonaya kaalmaha ugu horeeya Premier League kuwa ku tartamay inay noqdaan. Sanadaha soo socdana horyaalkaba haddaysan jidka u gelin. Tottenham waxay la ciyaaraysaa kooxda yar Nottingham Forest. Tottenham way badinaysaa baan idhi. Kulanka hore Newcastle waa badinaysaa kana Tottenham. Crystal Palace iyo Brentford baan idhi waxaa badinaysaa Crystal Palace baa badinaysaa oo barajay gelaysaa. Crystal Palace waa koox adag waxa laga qaban karo hadeer. Bacdariyaheedu ma hawl yara. Kulamada ku xigay isbuuca waxaan isku saadaaliyay ilaa Khamiista. Arsenal waxaan idhi 2 gool iyo wax ka badan ma iska dhalinayaan. Waxaan idhi Man City waa guuleysanaysaa. Tottenham baa xaggan guuleysanaysaa. Tan way kala badinayaan. Manchester baa badinaysaa ama barajay gelaysaa. Bayern Munich baa badinaysaa. Real Madrid waa badinaysaa. Barcelona waa badinaysaa. Juventus waa badin ama barajay geli. Inkastoo la ciyaarayso koox daafac ahaan u adag oo aan la dhayalsan karin. AS Milan qudheed waa guuleysanaysaa. AS Milan talabaadna waxaan idhi Khamiista way guuleysanaysaa. Inter Milan waa guuleysanaysaa. Roma waa guuleysanaysaa. Juventus kulankeeda kale way guuleysanaysaa. Napoli way badinaysaa. Asxaabta idinkana waxaan idinka codsanayaa like, subscribe and share. Waa idin soo diraya koodhka ciyaarta iyo sida aad u dhiganaysaan intaba. Idinkana waxaan idinka codsanayaa like iyo follow iyo share inaad saaxiibayaal aad ugu yaacisaan. Wabillahi tawfiiq.